roobab waaweyn oo tan iyo habeenkii xalay ahaa ka da'ay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa khasaare soo gaarsiiyay biriijka labaad ee magaalada Burco oo dhawaan xukuumadda Soomaaliland ay dayactir ku samaysay waxaana khasaarahaasi u galaaftay dadkii deganaa agagaarka biriijka labaad ee magaalada Burco isagoo dumiyay qaar ka mid ah guryaha ay deganaayeen iyo sidoo kale dugsi ka ag dhawaa biriijka labaad ee magaalada Burco oo uu dumiyay qaybo ka mid ah waxaana telefishinka sahan la hadlay dadkii khasaaruhu ka soo gaadhay halkaasi iyagoo baaqna u diray wasaaradda hawlaha guud iyo guryeynta ee Soomaaliland saddex reer baan ku deganeen halka saddexdii reer ee aan ku deganeen waxa qaatay qolka yar sandaqada mooyee labadii kale waxa qaatay daadkii waxa la wixii aan raashanaysanay wixii aan walaabaysanay daadkii baa qaatay waxa allaale wax noogu xalay saddexdii habeenimo roobkaasina mira markuu namirayna maxay ay tahay waa ka soo day guriga iyo raashinkii waxaan haysanaba uu naga qaad waxa allaaliyo waxa diyala waxaan dad naga qaadin laakiin wuxuu noolahay roobkaasi ma jiro daadka ay nagu xidheen baa waxa ay nagu xidheen baa noo baabiyay sabada la dhigay baa noo baabistay daadku warigii 50 sano maray 100 sano maray meesha laakiin waxa nagu soo jabiyay biyaha waxa tadxeelka noo dhigay ayaa dhinac walba naga baabiyay deehana laga soo gaadho nimankan meesha waxa noo dhigayna hal xidhxidho deehana laga soo gaadho nimanka halkan dhisay biriishkan meeshan ka dixdii biyo mari jireen ayaa la dhisa dabadna waxa lagu soo jeeyay dixda gabigeedaba iyadoo dhan baa lagu soo jeeyay dabadna waxay sababtay inay guryo iyo dad iyo ay burburiso dixdiina halkii ay mari jirtay waa laga soo duway oo biyo way ka soo baydheen waxa sababay dhismo xumo waanay garanayeen iyagoo dhisayaan u nimi waxaan ugu dhistay noqonaysaa marka hadda halkaas u dhistaan marka waxay yiraahdeen ilaa iyo waxaan isku xidhaynaa kaabada waxaan isku xidhaynaa biriishka iyo kaabadan isku xidhaynaa tiina may suuro gelin tiina waxay sababtay inay khasaaraha inta leeg ay magaalada soo gaarsiiso dad badan oo nagu xigayna guryahoodii way burbureen lama hayo dad la leeyahay hadar waa la leeyahayna anagu ma hubnaa waan oognahay oo in nin baa la leeyahay hadar gurigan hurday waxa duntay anaga laba xaafado halkan toddoba qol baa ka dumay halka oo laba reero deganaa iyo suuliyadoodii iyo waxoodiiba halkaana waxa ka duway geed weyn oo ilmaha bakardiba gaala lahaayeen halkaana waxa ka dumay iskuul baa ka dumay hadda farta laga qaaday de khasaara ma wada soo koobi karo waa fara badan yahay dad fara badan oo meelaha dhex ku jireen way jireen annagoo hurdnaan aragnay guriga oo gidaarka garaacaya adhigii markaa isagoo sita qaar baanu jiidjiidno xagaa u saarnay ka bacdii saa markaan aan biyo eegnay waxaanu halkan wax ka baxaya ma jiraane gurigii baanu dib u noqono caruurtii iyo wixii muhiim ah baanu ka soo guranay khasnadaha oo kala soo baxnay marka halkaasaanu shantiisii dhiganay oo inaanu yaacno ayuun baanu doonay waxa sababay oo keenay 15 sanadood waxa maanu arag dhibaatada daadna nooma iman jirin mid biyo halka ka soo qulqulmay wax la wax noo iman jiray ma jiraan waxa sababay biriishka intii gacanta la saaray ayaa arrinkaas nagu dhacay waxaanaanu u maleynaynaa kaabada weyn halka laga taagay inay tahay ciladani isuduwaha wasaaradda hawlaha guud iyo guryeynta ee gobolka Togdheer Xasan Qowdhan Warsame ayaan wax ka weydiinay sababta keentay in waxyeello ay soo gaadho biriijkan oo dhawaan wasaaradda hawlaha guud iyo guryeyntu ay dayactir ku samaysay waxaanu ku jawaabay sida tan kaabad laga taagoon meesha u baahnayni ma jirto waad aragtaa adiguba farsamo xumo dhaxdina ma jira wixii lagu ballamay qandaraaska lagu qaatay waa kaasoo way hagaagsan yihiin adigu haddaad cilmi kale iyo meel kale wax ku soo baratay natus halka wax ka khaldan yihiin oo farta noo saar injineeradu ciidda may keenin iyo hawlaha guud tanna ciidda may keenin waa dhulkii ilaahay abuuray roobkana bay keenin siyaadada waxa weeyaan waa ka ciiddi goysay weeyaan laakiin wixii hawlaha guud iyo shirkadii isugu tagay waa kuwa taagan wax ka xumina ma jiraan kolomiska way ka shaqeeyeen labada ribraamna waa laga shaqeeyay halkan waxba la dhigay wata ciidalinta caadiga u shaqeynaysa Shucayb Xasan Dheere telefishinka sahan Burco